jaamacadda muqdisho haddii ay iyo odayaashii way joogaan haddii ay awooddaas yeesheen ummaddii soo nooleeyeen waxbarashadii dowladnimadii soo dhiseen caqabadaha dowladnimada Soomaaliya ee hortaaganna way xallin karaan marka raggan gaagaaban ee kuwan dhaadheerba way ku jiraa caqligaasi dalkan xalkiisa waxbarashadii inayna ku istaageen waxbarashadu inay solution la timaado mushkilada asaas haddii cilmigu uu xal keeni waayo cilmi qalalo meel iska fadhiyay micna ma yeelanayo cilmigan waa inuu amnigan xaliya waa inuu gaajada inaga xaliyo iyo baahida hadda laga sheekeynayo duruufta inaga xaliya waa in uu wadan dhisan iyo dhaqaalaheena iyo horumarka dhaqaalaheena waa inuu inaga xaliya waa inuu arrimaha bulshada inaga xaliya waa in waxaan social problem keena haysto dhan xalkiisu waa inuu ka yimaado dhinaca cilmiga hadduusan ka imanin dhinaca cilmiga luga waaweyn kuma taagna marka mas'uuliyadda saaran jaamacadda muqdisho way weyn tahay waa mas'uuliyadda intaa leeg maanta waxaan maraynaa meel rajale dalkan jaamacadda muqdisho waxay ka soo saartay baa la dhihi karaa iyo afkaarteedii iyo mashruucaas ballaaran ay ka mid tahay dagaalkii sokeeye laakiin mid kale ayaa yimid haddana kii kale sidii looga soo saari lahaana waxaa la rabaa inay ka fikirto dagaal kalea yimid oo kii sokeeye aan ahayn oo dagaal nabadiid ah oo dagaal diimeed ah oo diintii oo si xun loo fahmo oo fikri ah oo aada u qaab daran baa yimid marka oo qarqarxaya marka dagaalkaas sidii loo xalin lahaana jaamacadda muqdisho waa uga fadhinaa annaga xukuumadda Soomaaliyeed go-aan waxay ku qaadatay oo ay aragtay dalkan inuusan dhaqaaq lahayn oo uusan dhaqaaqi karin haddii amniga wax laga qaban marka waxaa priority number 1 noo noqday oo qasab nagu noqotay inaan dhahano waa amni inaan dagaal galno dagaal buu dalku ku jiraa waxaan dadka Soomaaliyeed iyo jaamacadda muqdisho ku ka tahay dhalinyaradeeda iyo aqoon-yahanadeedu ka codsanaynaa in dagaalkaas la barbar istaago dowladda iyo hay-adaha ka shaqeynaya oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ugu horeeyaan guulo la taaban karo ay xaqiijinayaan waan is xoreyn karnaa intaa waxaa garab socda oo tiinna waliba ay aad ugu weyn tahay dhinaca caqliga iyo fikirka iyo maskaxda dadka waalan marka saddex dagaal oo waaweyn ayaan kula jirnaa midka koobaad waxa waaye waa dagaalka fikriga iyo maskaxda dadka laga xaday in maskaxda loo soo toosiyo kaas baad si xoog leh wax uga qaadan kartaa midka labaad ee muhiimka ah kula jirna waxa waaye waa dagaalka dhaqaale midka saddexaad ee ugu dambeeya wuxuu yahay dagaalka militariga ah iyo xabadda sadarteed intaas oo dagaal ah way isgarab socdaan wayna isdhex socdaan waxaan rajaynaynaa kaalintiina inaad ka qaadataan oo ah dagaalka toosinta iyo horumarka iyo horumarinta maskaxda arrinta la sheegay abaaraha waa dhibaato aada u weyn oo jirta runtii dhib aada u weyn dadkeenna wax aan horay usoo marin ayaa hadda jira inay 4 seasons oo isla socda oo isdaba socda inaan rooba diin oo dadkii ay abaar xoolihii inay dhaafaan dadkii inay hadda meelaha qaarkood inay dhintaan nasiib darro kale waxaa ah haddii xataa wax la gaarsiin lahaa inay adag tahay sidii wax lagu gaarsiin lahaa oo ay nimankaas dhibka badan ee mushkiladan hadda sheeganay fikradu maskaxdu ka qaloocatay caqligu ka qaloocday iyo caqiidadu ka qaloocatay in ay caqiidada qaloocatay foolxumadeedu inay tusisay inay dadkooda gaajo u dhintaan intay blogareeyaan jidadkooda waxaan la tacaalaynaa in jidadka la furo waxaa runtii wax lagu farxaa in from beledweyne ilaa Poolipurta maanta ay furan tahay oo nadiif tahay waxaan ilaahay ka baryaynaa inta kalena in ilaahay fududeeyo oo dadkaas jidadka loo furo si loo gaarsiiyo waxyaabaha aasiyaadka ay u baahan yihiin si loo gaarsiiyo